daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaaban oo aynu ku eegi doono xaaladaha waddankaasi Ethiopia ka socda. Ethiopia waa dalka ugu dadka badan geeskan Afrika wuxuu lagu halagalay xaalad dagaal oo aad u qaraar. Dagaalka ayaa socday tan iyo bishii September sanadkii hore 2020 kaasoo khalkhal geliyay waddankan ugu dadka badan geeska Afrika taasoo keentay in kumanaan qof ay ku dhintaan halka ay kuwa kalena ay ku nool yihiin xaalado macluul ah. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa siyaasadii xorriyadda waxaanu aasaasay xisbi cusub xisbiga barwaaqo waxaanu meesha ka saaray hogaamiyaasha sarsare ee dowladda Tigreega oo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo caburin. Dhanka kale Mr. Abiy Ahmed ayaa soo afjaray muranka dhuleed ee muddada dheer soo jiitamay kaasoo u dhaxeeyay Ethiopia iyo dalka ay dariska yihiin ee Eritrea sanadkii 2019. Hogaamiyaasha Tigreey waxay u arkaan dib u habeynta Mr. Abiy Ahmed inay tahay isku day lagu doonayo in Abiy uu awoodda dalka iskugu soo koobo oo lagu burburiyo nidaamka federaalka Ethiopia. khilaafka ayaa meel xun gaaray bishii September sanadkii hore 2020 markii ay dowladda dhexe ka dhaga adeegtay inay qabato doorasho goboleedyada. Dowladda dhexe ayaa dib u dhigtay doorashooyinka qaranka sababo la xiriira xanuunka coronavirus oo markaas si xun ugu baahay guud ahaan waddanka Ethiopia oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika waxay lafdhabar u tahay xasiloonida geeska Afrika. waxaa sidoo kale jira walaac laga qabo in iska horimaadku sii xumeeyo xiisadaha qowmiyadeed isla markaana uu horseedi karo in dalku uu kala go'o. colaadaha ayaa bilaabmay 4 September sanadkii hore markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu amar ku bixiyay in weerar military lagu qaado ciidamada gobolka Tigreey. talaabada uu qaaday Mr. Abiy Ahmed ayaa ka dambeysay markii ay ciidanka Tplf ay weerar gaadmaha ku qaadeen saldhig military oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Ethiopia. arrintan ayaa sii xoogaysatay kadib bilooyin uu khilaaf dhex taagnaa xukuumadda Mr. Abiy iyo hogaamiyaasha xisbiga ugu awoodda badan Tigreey. xiisadii siyaasadeed waxay isku beddeshay dagaal. xiisadan ayaa salka ku haysa hanaanka dowladnimo ee Ethiopia laga soo bilaabo 1994. Ethiopia waxay lahayd nidaam federaal ah oo qowmiyado kala duwan ay ka taliyaan. xisbigan ugu awoodda badan Tigreey waa xisbiga jabhadda xoreynta dadka Tigreey ee loo soo gaabiyo Tplf ayaa waxa uu saameyn ku lahaa dejinta nidaamka Ethiopia. waxaanu ahaa hogaamiyaha isbahaysi afar xisbi ah oo xukumayay Ethiopia laga soo bilaabo 1991 markaas oo taliska military xukunka laga tuuray. sanadkan bishii June waxaa dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada Tigreega iyo kuwa dowladda Ethiopia oo ay ku jiraan ciidamada isbahaysiga Ethiopia ee ka soo jeeda gobolka Amhara iyo dariska Eritrea. 28 June ciidamada Tigreega waxay dib u qabsadeen magaalada madaxda gobolka Tigreey ee Mekelle iyagoo maxaabiisaan ku haystay kumanaan askar Ethiopian ah. isla maalintaasba dowladda federaalku waxay ka baxday Mekelle waxayna ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah iyadoo ku sababaysay sababo la xiriira gargaarka bini'aadanimo. dib u soo noqoshada Tplf ee Mekelle ayaa waxay bilaabeen dhammaanba inay dib u soo ceshadaan gobolada xuduudaha iyagoo dagaalo ba'an ku qaaday ciidanka dowladda Ethiopia. ciidamada Tplf ayaa dagaal qaraar la gashay ciidamada dowladda waxay qabsatay magaalooyinka ay deganayeen Amharadu kuwaasi oo ay hore uga talin jireen Tplf sida magaalada Salaase, Shire, Wallo, Xumayra, Alamata iyo magaalada Waldiya oo 2 maalmood ka hor ay qabsadeen. Tplf ayaa guulo waaweyn ka soo hoysay dagaalka iyadoo gacanta ku dhigtay boqolaal askarta ciidanka Ethiopia iyo kuwa Eritrea. kumanaan ciidanka dowladda Ethiopia iyo kuwa huwanta ah ayaa u muuqda kuwa laga adkaaday. Tigreegu waxay tilmaamayaan inay qorsheynayaan inay dagaalamaan ilaa ay dib u soo celiyaan khadadka sahayda iyo xuduudaha maamul ee gobolka Tigreey ee dagaalka ka hor ay gacanta ku hayeen. Mekelle waxay kor u qaadaysaa waxqabadkeeda waxayna doonaysaa inay ka faa'iideysato guulaheeda si aan dib u dhac lahayn. waxaana cagta marisay dhammaanba ciidanka militariga federaalka iyo kuwa huwanta ah. hogaamiyaasha Tigreey oo ay dad badan oo Ethiopian ah ku eedeeyeen in tobannaankii sano ay xukun talisnimo ah ay ku muquuninayeen Ethiopia inteeda kale ilaa intii ka dambeysay 1991 markii ay la wareegeen awoodda federaalka Ethiopia. ciidamada Tigreega ayay badan tahay inay la kulmaan iska caabin dadweyne. dalku wuxuu geli doonaa fowdo intaas ka sii weyn oo ay ka buuxaan weerar kooxeed oo lagu qaadi doono Tigreega.